markii ay dhashay dukaanay aaday gurigii ebre uu maatay carruurtii ku yacno meel uu la jiraa horta inta horta qof markuu xanaaqafo wuxuu ka hadlaa runta moogtahay oo kula kaftamayna lagama yeelo marka mara waxa jirta isku qaylina and then muxuu dhaha camalno afrikaantan kulli lacag ay rabaan kii banaankay baxa lacag rabo kulli waan gataa idinka dhan lacag idinka baxdo kulaha waruntiisu yani nothing african activity wuxuu arkay waa africana masjidada sala youtube ila barbaan ku dhafan la soo gad yusuf soo gad asagoo harka sakiinada يوم كلا أنا we have maxaa haysana mogtahay next kinkaygu ahaa bangi then wuxuu sameeyey warqad dhimasho and then waxyaaba badan uu ii sameeyey hadda sida kees maxkamad ku socdaa الله تعالى وبركاته وإن سلام أصحابتي الخالقة السود بعد ما يربو جوكتينبو وبلاش نسهم عبديو إذا لا مركلة أي مقال عصب كسود بعد مقال كي نعاوي فضلا جنال كي قد أكو عصب سبسكرايب إيسار أباي أبوي دورنا لجوكتلو كومنت لايك شير إنتاس بنوغو عاوي سود بعد أصحابتي الخالقة ميرو جوكتينبو walaashay rayaan bajaaj hore waxa loo yiri Soomaali maxameday waxa taqaan guurso waxa taqaanaa u dhashay ya waxa taqaan guurso waxa taqaanaa u dhashay gabadhii rayaan bajaaj ahayd iyo ninkii dawacadaa waa isku yaaceen waa la kala booday heer wuxuu gaar uu dhaho way dhimato akoonkeeda intii ku saxiixdo uu damca lacagta inuu ka jabsado ka xado ay inta naga rafaad ah iyo kubdhis iyo dabadhis ay ugu jirtay uu rabo inuu ka jabsado haa ku soo arkay gaalka dabada cad gaal islaam xiyaa ma aqaan baraadan dabada cad waxa ku soo arkay adoo wiil Soomaali oo kugu af oo kugu diin oo kugu dhaqan heli kara oo inay hebel ku dhahay gaalka geedka xumi cad ka faanayo afrikaanta ku dhahay ha ku soo arkay bismillaahir rahmaan yuu baadi cagti joogsameeda marba ceeb la kulantaa rayaanay alxamdulillaah hadduu inta ku fogeysan uu shan ciyaala ka dhalin oo shan cununta ka qaato oo soo tuurin alxamdu sorry asxaabi caawa dhuunta ay xanuunayso dhuunta leega haaya waxa u maleena tonsilsa igu kacsan walow hadda daawo aan isticmaalay haddana dhuunta zaid xanuunayso haddaan ku telefo oo ay taydii noqoto isoo taceeya oo tayda ay noqoto ayaamahan si fudud baa lagu tagaaya alxamdu shukri geeri waa la wada joogaa ilaahu rabbi raxmaan oo gafkanaga geeridana ha kulminin asxaabtida qaaliga hadda waa u jeediinba walaasheen waxay tiri maxaan ku dhahay intaan ku saxiixay tiri akoonkii oo ku saxiixay lacagta ku wada ridana lacag ugu darsaday aan akoon ku saxiixay dhahday maalinta ku xigto inta dafiiray dhahday oo yiri qofkii akoonka ina lahaa waa dhintay lacagtaas u baahanahay ana markiiba inta ma aaminin inta ka daba tagaa waxay tiri aan ilaahay kuma samadiiday aan soo badashay dhado walaashi aan ku soo qortay marka hore oo meesha kalsooniyo ma oolin ya marka hore oo meesha kalsooniyo ma oolin rayaanay Soomaali maxamed oo kula talsan rag iyo dumarba maxaa ku keenay inaa ka carare inaa iska jiray inaa wareena wallahi maxaan dhihi karaa aniga kole tala iyo waana kuma yareen laakiin calaf baa jiray wuxuu ahaadaba calaf baa meesha yaalay oo ku geeyay haddana haduu ilaahay shartiisa intaas kuugu simay dacwadiisii doodiisa waxba ha sii gelin inta ku cilmi qaadatid anigu waxaan ba kula jeclaa wiilka yarka qurxilooga ilmaha u dhashay Cabaas yar ba kula jeclaaday Cabaaska ku noqo ma sha Allah tabarakallah wiilkaas waa isku nuuraysiin waa isku soo bixaysiin awlaad baa in dhex taalo hooyadii aabba haday ilmo dhex yaraan ma kala dhamaadaan mana kala tagaan marka waxaan ku dhihi lahaa baag ya baag aan ku dhihi lahaa ani dib u laawo saaxiibay marka horaad xirada ka baxday ya wala nin ajaanib inuu faa'iido leh nin ajaanib maarat faa'iido ma lahan anoo nimanka Soomaalida aan faaninaynin wallahi oo faaninaynin nin Soomaali ah oo gabar inta furay ilmo ka xoogay ama ka afduubay uu yar yahay nimanka Soomaalida naagta markay furaan ilmaheedana faraha uga qaadaan haday raan biiliyayso ku siinin faraha uga qaadaan ilmaheeda waay wuxuu og yahay xagee ka geynay waa in hebel asna waa in hebel xagee ka geynay tan kale wuxuu og yahay inaa hooyada ilmaha hooyada loo dhaamin buu og yahay marka israa kale wax iska raasado meeliisa iska tagay
فرح لو باستياش إنه ما المها نجوا قاتان ميلنا نجوا مجيان لكن إن أجانب ما أنت جورستين أما عدانها هذا أما تشينها هذا أما يوروبيانها هذا أما أمريكان هذا أما أفريكان تابها هذا ما أنت لو كلمة داستين wuxuu ku fakarayaa suu laa dabada kaaga gelinha ilmahan uu kaaga qaadan lahaa waayo hooyada mar haddii ilmaha laga heesto way bahdilan tahay xoolaha ma aragtay hadda wixii yaqaano neefka markuu dhalo ama xooluhu markay dhalaan ilmaha lugta looga xiraa cunuga markii lugta laga xiro neefka weyn meel ma aadayo hooyada cunugaas dhashay ama ari ha ahaato ama geel ha ahaato ama lo ha ahaatee meel ma aadayo marba haddii cunuga lugta laga xiro meel ma aadayo hooyada ma aadayso marka hooyadana Soomaalidana saasi u bahdilaan ay u galaan nimanka ajaanibta 24 hours waxay ugu cagajugleynayaan ilmaha ka qaadana iska bax adiga ilmaha ka tag ilmahayga maxaa soo agmari kartid ilmahayga marka hooyadu waa iska bahdilan tahay ninkaas waa iskala nooshaa ma ogi wallahi qiimasaas u sii badan kuma haysato wiilashanada Soomaalida wax ka fiican ma jiraan run hadii la isu sheego wax ka fiican Soomaali ma jiraan qof kugu dhaqan ah kugu diin ah kugu af ah kugu jinsi ah wallahi wax ka fiican inaysan jirin uu ku danqanaya uu ku naxaya hadduu u bato cirka u boodo xalimo kale uu kula aroosaya wax ka badan kugu ma sameeynayo farax lagu baasto ya xalimo kale cirka laga soo gabo kula aroosaya de xalimay farax isu ka dhaama waxa uu isku midkii leeyahay ya marka aan Soomaali Maxamed waxaan idin dhihi lahaa gabdhaha kaleeto oo ayaguna u niyad taagayo dabacadahan dabadaanyar u niyad taagay gaalada u niyad taagay ku quusta rayaan ya rayaan ku quusta hada kor ayadii waxay nooga sheegay jirta harta ana ay korisa ahay ayeeyan lama dhigi karo hooyadii macaan oo jecelahay hooyo ii tahay ayeeyo iyo hooyo iyo wax kasta ii tahay hooyadii macaan oo ii joogta ayadana Allah ii dhaafo dhamaantood ba Allah ii xifdiyo Allah ii dhaafo marka ayadii waxay dhigi jirtay markay noo sheekeeyeen wala sheekaysan jirnay way noo sheekeyn jirtay ayay waxay dhigi jirtay marka gabdhuhu marka ay shukaansiga ay wax shukaansanayaan ama ay guuraadiska yihiin hal ilay qabaan ay dhigi jirtay halkaas il meeshii ay ku aragtay dhag ku siiso lagama celin karo ilaa ma ayada ay ka soo noqoto ma ahan asxaabteeda qaaliga marka anaga waxaan isdhihi karnaa Rayaan Bajaaj halkaas warkeedii iyo ninkii ay ku soo afxirteen Soomaali waxay daba kacaan ayaga unba soo kala tuur hadana wax badan baad wallahi caaw dhunta tacbaanka ahay alxamdulillah bismillah Soomaali wax badan bay dhaheen Rayaanayna ka cararayna iska jiray wuu fakaday wuu cararay waa la soo helay toos u baxa markaan oo u baxay wayna shaacisay oo banaanka keentay marka isku dhacna wuxuu yiraahdaa mara istagaalna wuxuu yiri kulaha Afrikaanta taan waa la yaab lacag jecel dilay waxa lacag nicmo u ark haduu asaga lacag nicmo yaanaata Afrikaanta lacagteed muxuu u rabaa inuu xal ya oray wax lacag nicmada arkine adoo daayar daba gududan oo adduunka meesha ugu dambaysa u dhashay Afrikaan ku dhex keenay lacag ka soo doonta xaga la ka soo doonta ma naga qanaacad noo tartiin mas anaga wanaag noo tartiin inta gabar oo hadda nin ajaanib inay guursato rabtan Rayaan ku quusato in Rayaan iyo intii la midoona hadda way arkeen ba ajaanib waxay tahay way arkeen Rayaan waa u sheegay aniga back aan dhahay dib u laaban dhahay waxaan rabnaa inaan isla daawano oo isla aragno asxaabteeda qaaliga xaaji dab casar ninka xaaji dab casar ah oo magaalada Caabud waxa ahayd cuquba ay kaga soo dhacday walla magaalada Caabud waxa ahayd dab casar cuquba kaga dhacday ma magaalada sidaas u xumaatay Caabud waxa ma dab casar baa xun aniga waxaba qofkaas ninkaas wuxuu nin diin leh oo diin iyo iimaan leh oo wanaagsan oo Ilaahay ka cabsanayo Ilaahay dab casar وانا تاجر دبع عسر وانا جعل انا افتقي واي نكاس وانا ستا نك دبع عسرها عاوده قوها باره هرت ومدو عينين قوها باره اسقو اويناي او كسوبخ عيرول اويناي هكاتك حنو رير عاوده قول بسم الله الرحمن الرحيم الى عقوبه دبع عسر هين كدو هذا تقر درنتيهين او ظلمدين والله عقوبتيس way in ku maqantay bal asla daawan xaaji dab casar iyo oo cimradii tagay cimradu jooga asaga shiina cule bal asla daawan اعمال عمرده iyo qeybta hanaadka iyo sabr asqeer oo soo shay ila cimriga Ilaahay subhanahu wa ta'ala barwaaqada adduunka mid afan Allah siiyo salaati amal Soomaali way ugu qatay in Allah naga dhigo kuwa adiga iyo qeybka shaqeynaysa wanaagga asxaabtii anaga baan qeybka ku qara Soomaaliya amiin farxad waxa ay ah markuu inaan beedkii nabiga sallallahu alayhi wasallam ee joogo الحمد لله قياس الشرف معايا شيخ يجي كلنا مسكين قال لك بحاول مسكين قال لي انا علي شيخ طبعا سر الى هذا الاسبوع ليش كان يقول لي قبل
darsanayn haddana ما شاء الله وان وتا aniga abtigay waan wataa aadan wallahi u taageeraa waan jeclahay qof diin la waayo qofkuna haduu diin leeyahay ma qaladaad badno oo qofku haduu diin leeyahay diintana ulahaanteeda wax kasoo uu ku dhaqmaayo diintiisa uu ku dhaqbaayo qof streed oo wanaagsan buu u badan yahay marka ma garanayo dhibta halkaas ka soo gaartay iyo waxa lagu maagay iyo wax qaldan ma fahmi karo marka waxaan leeyahay cimradaada Allah ka aqbalo xajkaaga Allah ka aqbalo noono soo ducadaadana Allah noo aqbalo asagii shiina culay baa garbaa isaysto isla joogo ma sha Allah tabaarakallah ilaahay ku naxariistaan ku leeyahay abti adiga aakhiri adduunba Allah ku naxariistaan ku leeyahay waxaan rabnaa inaan maxaan ku dhahay bal kilibkan kala bal ila daawada Soomaali Maxamed kamini soo dhaw iskuuladii wixii ka soo yeeray waa la maqlay sharciyadii waan maqalnay maxaan ka qaban karnaa Allah iyo ninii daran maxaan daafta hore seexshay wadinin jiirku doonayn maxaan hadalka deeqsiiye waxba kama qaban karno codkeennii waxaanu siinay dadkaa watay baanu siinay qaladkana waxbaan ku leenay maantana iskuuladii waa ogtihiin inaan ilmahaaga wixii lagu soo yidhiyo wixii lagu sameeyey siduu u dhaqmay midnaba waxba ka gabadhan hadalkeeda waxaa idinkaga baxay Soomaalida qurbaha joogtay special America maxaan ku dhahay waxyaabo aan fiicnaan laga saxiixay oo iskuulada lagu soo kordhiyay sida maxaan ku dhahay ilmuhu inay choice yeeran karaan oo wiilku uu gabar isu bedeli karo gabadhuna ay wiil isu bedeli karo oo maaragtay ay ilmuhu ay isu guursan karaan wiil gabar isu guursan gabar isu guursan karaan wiil isu guursan karaan waxyaabo noocaas ah la saxiixaa la dhahay oo lagu soo kordhiyay iskuuladii cunuga marka wixii uu doorto waalidiinta kama hadli karaan choice ma lahan cunuga asaga choice-ka iskale hadda aniga waxaan la yaabanahay cunug yar oo maxaan ku dhahay teenage iyo wax ka sii hooseeya ah choice-ka uu yeelan karaa maxay waa kufri cad waa gaalnimo waa wasaqnimo waa dulinimo waa diintiyo bud lagula tumanayo diintana waa kor budna kulama tuman kartiin laakiin waxa in ka aqli xun waxa caruurtooda in la xigeeyo inuu ku dhex dhalayo in dhex joogo ilaahay waxaan ka baryaanaa inuu awlaadana noo badbaadsho awlaad islaamka uu badbaadsho Soomaali kaliya meeshaas kuma nool muslimiin badan baa ku nool carab baa ku nool cajab baa ku nool wax aan muslim aan ku noolayn meeshaas waa yariyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala shartiinaha naga badbaadsho gaalooy waxaa la yiri inda quraanjo iyo aqli gaalo iyo inda quraanjo midna lama arka ma ahayn wallahi billahi waxaasayto wax laga naxawaaye Soomaalida way baraarugeen way naxsan yihiin waxa ku hayaan bali waa guureynaa waa cararaynaa Afrika u laabaneynaa waa goorma waaba inuu ku bariyo waa goorma war waxaas iyo wax ka darba meesha waa ka soo socdeen anigu gaal halkaan hayga ahaato hadii ay maxaan ku dhahay kuwaano kirif iyo keenana waa ka anigu meeshaan ka imaado laba tilaabo ay jirta dib baan u cararaaya ma fahanteen marka wallahi billahi meel aad cunugaaga ugu talin karin oo cunugaaga aadan xaq u leexadii karin oo cunugaaga maxaan ku dhahay talaleeya saacadatan waxaas iyo wax la mid ah iskuulada lagu baraayo aadan ka hadli karin wallahi meesha xornimo ma taal ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu muslimiinta ka badbaadsho oo awlaadooda ka badbaadsho war waxa in leeyahay war ilmaha kala carara meesha ilmaha kala carara waa la isku fahmaayeen ma carari kartiin wixii carari karo meesha ka carara meeshaas nafo ma taalo waji ma yaalo waxaan ku dhahay tafasahaad baa taalo wallahi oo billahi tallaahi maalinta yawmal qiyaamah cunugaaga waa lagu weydiinaa meeshaad geysay iyo waxaad bartay iyo waxa maxaan ku dhahay waa lagu weydiinaa adaa mas'uulka waa lagu weydiinaa hooyoy iyo aabbo cunugiina adinka mas'uulka waana layna weydiinayaa ilmaha meesha kala carara naagaa kan wada islaamihii inta wada maseeramay nimanka iska furay nimankiina duurkooday galeen islaamihina duurkooday galeen ilmihii marka meel cillaha laga qaadanaya wallahi waa layna weydiinayaa maalinta yawmal qiyaamah cunugaaga waa lagu weydiinaa maxaa bartay xageed geysay maxaad u dhimisay waa lagu weydiinaa hadduu qayngaaro oo 16 sano adigu intii islaamka ku qayngaaro 15 sano waaye intuu qayngaaro diintaas islaamka barto doorkiisa uu kaamar cunugaas laguma weydiinaa laakiin inta uusan qaangaarin wallahi waa lagu weydiinaa cunugaaga adaa mas'uulka adaa lagu weydiinaa maadi laguma weydiinaa laakiin diinta akhlaaqda maxaan ku dhahay aabbo iyo hooyo cunugiina aad ku durdursin oo inta isfurteen aad duurka ku dayacdeen waa layna weydiinaa maalinta yawmal qiyaamah waxaad uga jawaabi lahaydaan soo diyaarsada ma fahanteen oo Soomaaliya ay meesha ka carar ilmaha kala carara meesha asxaabteeda qaaliga caawa caajisanahay dhunta ay xanuunayso faatixada iyo soo mara iyo soo duceeyo ilaahay inuu caafimaad sariican siiyo
hadday taydi ahaatana ilaahi subxaanahu watacaala oo inoo naxariista adduunya aakhira waa la wada dhimana waan la wada tegayaa channelka subscribe saara haddii la nool yahay like-ta waa xaggeena commentiga wixii ra'yigaaga ku dhiibo asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu bye bye